wasiirada saaxiibada ee halkan inala fadhiya wasiirka caafimaadka wasiirka xanaanada xoolaha wasiirka xigeenada haweenka saarakiin wasiir dowlaha wasaaradda xildhibaan sharmaarke agaasimayaasha oo ugu horeeya agaasimaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare agaasima waaxidiyada macallimiinta maamulayaasha gudoomiyaasha waxbarashada gobolada iyo degmooyinka saxaafadda iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sidii halka kan agaasimaha imtixaanaadka iyo agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada uu ka sheegay fariintii qiimaha iyo qaayaha lahayd ee wasiir jaamac wasiirka caafimaadka puntland uu halkan ka sheegay runtii waxay noo tahay dhammaanta iyo farxad iyo rayrayn inaan maanta soo gaadhnay inaan shaacino natiijadii dugsiyada sare ee dowladda puntland arinta ugu horeysa ee aan rabno inaan ka hadalnaa waxa weeyaan sanadkan agaasimaha guud wuxuu sheegay inay dhacday inaan gudbin doono fariin kuwii hore aan gudbin jirnay ka duwan insha allah fariintaas waa gudbin doonaa waxayna noqonaysaa fariinta ugu dambeysa guud ahaan imtixaankii ardayda puntland waxaa u fadhiistay sanadkan 4,942 arday oo isugu jiray 3,020 arday oo wiilalah gabdhuhuna waxay ahaayeen 1,922 ardaydaas waxaa baasay wiilasha waxaa baasay 2,960 gabdhahana waxaa baasay 1,872 arday totalka ama tirada guud ee baastay 4,832 arday waxaa dhacay oo imtixaankaas aan gudbin 59 arday 31 wiil iyo 28 gabdhood dhicidda gabdhaha ayaa sanadka hooseysa oo wiilasha badan waxaan imtixaanka ka qayb qaadan sanadka oo aanay duruufta u saamixin ama imtixaanka aan gelin 51 arday marka loo eego natiijooyinka from A to D waxay noqonayaan marka A iyo A minus category-ga inta eeda gashay sanadka ardayda heshay A pure ah waxaa totalku uu noqday 238 arday A minusna waxay noqotay 707 arday ardayda guud ee B plus ilaa B minus 423 waa B plus 390 arday waa B 417 waa B minus C-da oo C plus C iyo C minus isugu jirto 3 category ah 656 arday waa C plus 539 waa C 533 ardayna waa C minus category-ga D-da oo ugu dambaysa category-gaas wuxuu noqday 533 arday waa 539 waa C 533 waa C minus 570 waa D plus 262 waa D 96 ardayna waa D minus ardayda dhacday waan sheegnay 59 bay ahaayeen intaan imtixaanka ka qayb gelin waxay ahaayeen 51 arday natiijada inoogu xigta oo ah maaragtay waxaan sheegaynaa top 10ka ama 10kii waxaan sheegaynaa 10kii iskuul ee ugu sarreeyay oo performance-ka la yiraahdo 10ka iskuul ee ugu maaragtay xagga performance-ka ugu sarreeyay baan sheegaynaa sanadkan iskuulka koowaad ee performance-ka wuxuu noqday dugsiga sare ee galdogob ayaa kaalinta koowaad sanadka performance-ka oo A minus ah dugsiga labaad wuxuu noqday buraan magaalada buraan gobolka sanaag ama gobolka highland galdogobna waa garanaysaa ama gobolka mudug iskuulka saddexaad wuxuu noqday iskuulka garaar oo degmada waaciya gobolka karkaar iskuulka afraad wuxuu noqday iskuul aan u malaynayo sanadkan inuu ahaa sanadkii koowaad ee ay ka qayb galaan imtixaanka form 4ka waa iskuulka boosaaso ku yaal waa maxamed cawaale liibaan wuxuu noqday iskuulka afraad iskuulka shanaad wuxuu noqday iskuulka nugaal ee magaalada garoowe iskuulka lixaad wuxuu noqday iskuulka boosaaso public ee magaalada boosaaso gobolka bari iskuulka toddobaad wuxuu noqday xaaji salaad
oo degmada Carmo gobolka Bari iskuulka 8aad wuxuu noqday Sheekh Cismaan magaalada Qardho gobolka Karkaar iskuulka 9aad wuxuu noqday Xaaji Cabdullaahi oo Balididin ku yaal gobolka Bari iskuulka 10aadna wuxuu noqday Imaam Nawawi Boosaaso tobankaas iskuul waxay noqdeen tobanka iskuul ee performance-ka ugu fiicnaa ardayda sanadkan ee iskuulada sanadkan hadda waxaan yeedhinaynaa natiijada tobanka kaalmood ee ugu horeysa ardayda guud ahaan 18 arday baa kaalintaas isku haysta 18 arday baa kaalinta ugu isku haysta kaalinta marka koowaad waxaan rabaa inaan mucjisadii halkan uu ka sheegayay ama isbedelka sanadka kan dhacay waxa weeyaan oo Maxamed Cali Faarax oo halka ka sheegay waxa weeyaan sanadka iskuulada Puntland waxa ugu sareysay gabadh baa ugu sareysay top 10 kana waxa ku jira 6 gabdhood marka halkaas waxa ka muuqata waxbarashadii gabdhuhu hawsha ay galeen inay wiilashii meel iska saareen wiilashii meel bay iska saareen runtii wasaaradda iyo howlwadeennada iyo macallimiinta iyo maxaanku yiraahdaa waalidiinta iyo gabdhahaba waa guul u soo hoyatay maadaama top 10kii ay 6 gabdhood gashay gabadhii ugu sareysay Puntlandna qofkii ugu sareeyeen oo gabadh noqday marka hadda waxaan shaacinayaa magacyadii insha Allah gabadha kaalinta koowaad gashay waxaa la yiraahdaa Maryan Cabdikariin Axmed waa gabadh dugsiga Alwaaxa ee magaalada Garowe Nugaal qofka wiil baa ku xiga waxaa la yiraahdaa Maxamuud Cabdisalaan Maxamed waa Sheekh Cismaan Qardho Karkaar qofka saddexaad waxa weeyaan Cabdirasaaq Mahad Yuusuf waa Imaam Nawawi Boosaaso waxaa ku xigta Muxibo Cali Cabdi waa Xaaji Cali Biixi Mudug waa magaalada Galkacyo qofka ku xiga waxa weeyaan waa gabadh Caaisha Cali Daahir Maxamuud waa Galdogob Mudug shantaas arday markaa waa shanta ugu sarreysay saas isugu xigta kaalinta labaad intaas kaalinta lixaad waxaa wada galay saddex arday saddexda arday waxay kala yihiin Faadumo Cabdirasaaq Qaasim waa iskuulka Alwaaxa magaalada Garowe gobolka Nugaal waxaa kaloo isla kaalinta lixaad ku haysta Maxamed Cabdisalaan Maxamed Sheekh Cismaan Karkaar waxaa kaalinta lixaad kula haysta isaguna Maxamuud Maxamed Liibaan Xaaji Yaasiin Boosaaso Bari kaalinta toddobaad waxaa ku jira laba arday baa ah soo saddex waa laba arday waxay yihiin Cabdullaahi Cali Saciid waa Cumar bin Cabdilcasiis oo Boosaaso ah ardayga kale ee kaalintaas ku haystaasna oo ay isku kaalin yihiin waa Cabdiraxmaan Caydruus Maxamed waa iskuulka Dangorayo ee gobolka Nugaal ardayga kaalinta 8aad hal arday baa ku jira ardaygaasi waxa weeyaan Axmed Mahad Cabdullaahi waa Galdogob magaalada Galdogob ee gobolka Mudug kaalinta 9aad waxaa ku jira 4 arday ardayga koowaad waxa weeye Mustafa Khalid Yuusuf waa iskuulka Cumar Samatar gobolka Mudug magaalada Galkacyo waxaa kaalintaas ku jirta 9aad gabadh Samiira Cabdulqaadir Maxamed dugsiga Alwaaxa magaalada Garowe gobolka Nugaal waxaa kaalintaas 9aad iyadoo isaguna ku jira Cabdiraxmaan Maxamed Cabdisalaan waa Nawawi iskuulka Nawawi Qardho gobolka Karkaar waxaa kaalintaasna ku jira Axmed Cabdullaahi Xasan Cabdiraxmaan waa Xaaji Salaad Carmo gobolka Bari kaalinta 10aad waxaa ku jira 3 arday saddexda ardayna waxay kala yihiin Xanaan Saciid waa gabadh Xanaan Saciid Xasan waa iskuulka Nugaal magaalada Garowe ee gobolka Nugaal waxaa kale oo kaalinta 10aad ku jira Cabdimaalik Jaamac Ismaaciil Imaam Nawawi Boosaaso Bari gobolka Bari kaalinta 10aad waxaa ardayga ugu dambeeya uu yahay Usaama Cabdullaahi Cali waa Muntada Qardho 10 kaalmood 18 arday oo qaybo ka mid ah ay hal kaalin ku wada jiraan weeyaan marka isbedelka dhacay oo muuqda oo aynu aragnaa dhamaanteen waxa weeyaan waa isbedel
ka dhacay xagga isku oo aan rabnaa aan ku soo kordhinay inaan sheegno 10 iskuul ee dhinaca eeda xagga eeda ay ugu badan yihiin maadaama aad garanaysaan iskuullada ardaydu inay kala badan tahay مثلا iskuullada public iskuul Cumar Samatar public Boosaaso maxaa la yiraahdaa Gambool iyo Sheekh Cismaan maadaama ay yihiin iskuullada ardaydu ay ugu faraha badan tahay waxaad qiyaasi karaysaan tirada ardayda ee eeda helaysana inay iyaga ugu badan tahay sidaa daraadeed sanadkan kaalinta eeda ardayda ugu badan waa dugsiga Cumar Samatar magaalada Gaalkacyo 105 arday baa ee haysata waxa ku xiga iskuulka Boosaaso public gobolka Bari 83 arday baa ee heshay waxa ku xigay iskuulka Sheekh Cismaan ee magaalada Qardho gobolka Karkaar 63 arday iskuulka Gambool ee magaalada Garowe gobolka Nugaal 62 arday iskuuladaasi waa iskuulada public ah oo afarta ah oo ugu tunka weyn iskuulada sagaalka gobol macnaha ay ardaydu ugu badan yihiin weeyaan kaalinta shanaad waxa ku jira iskuulka Imaam Nawawi Boosaaso 57 arday kaalinta lixaad waa iskuulka Najax magaalada Bari magaalada Boosaaso gobolka Bari 56 arday Imaam Nawawi Garowe 40 arday Imaam Shaafici Boosaaso 39 arday baa ee iskuulka Alwaaxa ee gobolka Nugaal 35 arday baa ee magaalada Galdogob ee gobolka Mudug 27 arday baa ee sababta 27 ay ardayda ahay performance iskuulka ayay kor u qaad ardayda oo yar oo dhowr iyo 42 arday ah in ka badan half ayaa waxay heleen sidaas bay waxay ku noqdeen performance ardayda marka la eego ama iskuulka la eego inay kor u qaadayaan intaas waxa ku soo gabagaboobay natiijadii imtixaankii aan qaadnay sanadkan 2019 runtii duruufii halkan laga sheegay wasiirka caafimaadku sheegay agaasimaha guud uu sheegay arintaasi iyadoo ay jirtay waxa inoo muuqata maanta inaan guuleysanay in imtixaankii natiijadiisa aan ku dhawaaqnay in xanuunkii iyo duruufihii dhacay ay dib u dhigeen laakiin se aanay naga reebin oo wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare aanay ka reebin inay imtixaan qaadi karto runtii waa arrin muhiima caalamka waa yar yahay dal qaaday imtixaanka shahaadiga ah aad buu u yar yahay ama maba jiroba dalalka technology-ga iyo haysta maaragtay qaab online ah inay imtixaanka ku qaadaan waa laga yaabaa inay qaadaan laakiin wadamada inaga dariska inala ah East Africa sanadkan waa u suuragali weyday inay imtixaankii qaadaan inaga maanta waxaynu nahay Puntland dawladda Puntland wasaaradda waxbarashadu wasaaradii ugu horeysay ee ku imtixaanna qaan aragno kaalmahaas sare inay gabdhaha Puntland soo galaan sidaas darteed ayaan ugu hambalyeynaa waxaan rajaynaynaa insha Allah sida wasiiradu ay sheegtayna gaabku runtii ma weyna ma badna marka saa loo eego laakiin aad baan uga shaqeynay gabdhuhu aad bay kor ugu soo kaceen tacliintooda kor bay u soo kacday sidaas daraadeed waxaan ka wada shaqeyn doonaa laga soo bilaabo dugsiyada hoose ilaa iyo sare gaabku inuu xidhmo hadda waa 52 48 soo sidaas ma 48 52 weeyaan waxaan rabnaa insha Allah mar dhow 50 konton boqolkiiba gabdhaha iyo konton boqolkiiba wiilala inuu gaabku xidhmo baan rajaynaynaa waxaan kaloo ka wada shaqeynaynaa oo hadda wasaaradda aan rabnaa inaan bilowno tababarka macallimiinta inaan gabdho u badino waa run waxaan rabnaa tababarka macallimiinta ee soo socda boqolkiiba 60-70 gabdhaan ka dhigi doonaa insha Allah waxaan rajaynayaa marka gabdhaha macallimiinta ahi oo macallimiinimada inay bartaan rabaa waa gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa waxaan rabnaa kaalintaas inaanu buuxino wasiiraduna aad iyo aad bay ugu mahadsan tahay inaan xusuusay arrintaas intaas waxaa inoogu soo gabagaboobay barnaamijkeennii maanta ee aan ku natiijadii imtixaanka Puntland saxaafadda iyo qof kasta oo halkan ka soo qayb galay aad iyo aad baad u mahadsantihiin shirkuna waa inoo xidhan yahay wabillahi tawfiiq